السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا Warbixin kooban oo aan ku eegayno geerida Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Eng Yariisow. gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaan duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Eng Yariisow ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu daaweynayay. Injineer Yariisow ayaa waxa uu ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 24kii bishii Luulyo sanadkan 2019 kaasi oo qaar badan oo kale oo mas'uuliyiinta gobolka ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa isla saacad kadib la dhigay isbitaalka Digfar ee Muqdisho halkaasi oo maalin kadib laga qaaday lana geeyay isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu daaweynayay tan iyo markaasi. dhaawaca qaraxa ka soo gaaray Injineer Yariisow ayaa u badnaa firiiro ka galay qaybaha sare ee jirkiisa. dad la jooga ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in gudoomiyaha firirka ugu daran uu uga jiray madaxa sidoo kale firirka kale ee halista ahaa ayaa laga saaray caloosha intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho. maalmihii ugu dambeysay waxaa jirtay rajo wanaagsan oo ahayd in xaaladiisa ay ka soo reenaysay sidoo hore kadib qaliina dhowr ah oo lagu sameeyay hase yeeshee waxaa qornayd in waqtigiisa uu ku ekaa maanta. waxaa la joogay xilliga uu geeriyoonayay gudoomiyaha qoyskiisa oo ka yimid dalka UK iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. haatan dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay arrintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraan yare u diray qoyskii qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum Cabdiraxmaan Cumar Injineer Yariisow oo ku geeriyooday dalka Qatar. waxaana tacsida madaxweynaha lagu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday marxuum Cabdiraxmaan Cumar Yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaan duqii magaalada Muqdisho. marxuumku wuxuu naftiisa iyo waqtigiisa u horay u khidmaynta shacabka Soomaaliyeed isagoo oo ka soo qayb qaatay dadaaladii dib loogu dhisayay dawladnimada Soomaaliya xilliyo kala duwan. waxaa lagu xasuusan doonaa sidii hagar la'aanta ahayd ee uu ugu khidmeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo waliba dadaalkii uu u galay horumarka magaalada Muqdisho iyo la dagaalanka argagixisada oo uu qayb weyn ka qaatay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa faray dhammaan hay'adaha dawladda in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda inta lagu jiro baroor diiqda gudoomiyaha oo soconaysa muddo 3 cisho ah. madaxweyne Farmaajo ayaa eebba uga bariyay marxuumka in eebba uu jannadiisa firdawsa geeyo qoyskiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allah u naxariiso marxuum Injineer Cabdiraxmaan Cumar Eng Yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho oo maanta ku geeriyooday dalka Qatar kadib dhaawac ka soo gaaray xarunta maamulka ee gobolka Banaadir. qaraxaasina waxa uu dhacay 24kii Luulyo ee bishii aynu soo dhaafnay. dhammaan bahda Jubaland Media waxay ummadda Soomaaliyeed uga tacsiinaysaa geerida ku timid marxuumka waxa ayna ehelkiisa iyo asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeedba ay leedahay samri iimaan Allah inaga wada siiyo.